بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa channelka YouTube-ka aynu ku leenahay ee National TV haddii aad hore inoola joogin nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka Ra'iisul Wasaare Roble oo sheegay in si aan gambasho lahayn loogu hanjabay dilkii xildhibaan Aamina Allah u raxmadee xoga sira oo ra'iisul wasaaraha bixiyay ayaan idin wadaagaya Saciid Cabdillaahi Dani hogaamiyaha Puntland oo isbedel lama filaan ah ku sameeyay golihiisa wasiirada iyana waa daawan doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble oo cadaadis labada dhinac ah lagu saaray in uu isku soo sharaxo madaxweynaha dalka iyana waa daawan doontaan garoonka Muqdisho oo gale xaalad amni dare oo hagad gelin karta duulimaadyada qodobadii nagu soo kordho intaan ku guda jirno barnaamij wareedkayaga ayaan idinkugu soo gudbin doonaaye ugu horeen waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe inoo saar muuqaalkana la eegare oo share gare si uu u gaaro saaxiibo fara badan intaasina waa codsiye markana waxaad ku soo dhawaataan kuna soo siqdaan qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan إنه كهورين رئيس الوزراء dalka Maxamed Xuseen Roble wuxuu si aan gambasho lahayn u sheegay in loogu hanjabay dilkii Aamina kadib markii isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle hor istaageen in kursiga hoob 135 loo xiro shakhsiyaad gaar ah waxa uuna xusay in ay dileen kooxdii Ikraan dishay kulankan loogu duceynaya Allah u naxariistay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo muwaadiniin kale oo ku geeriyootay qaraxii dhawaan ka dhacay xarunta gobolka Hiiraan ayaa xalal lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kulankan oo ay ka soo qayb galeen inta badan shakhsiyaadka indhaha u ah bulshada caasimadda ayaa si weyn loogu duceeyay marxuumad Aamina waxaana si mug leh loo xusay kaalinteeda shaqo siyaasadda iyo u adeegida bulshada kulankan waxaa soo qaban qaabiyay xisbiga madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud UPD kaasi oo ay xubin muhiim ka ahayd Allah u naxariistay xildhibaan Aamina waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynayaal hore iyo madax kale hadalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilka gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa si weyn kaga gadisanaa hadallada kale waxa uu sheegay xog hor leh oo sii xoojinaysa shakiga la xiriira in ay Aamina dileen kooxda Fahad iyo Farmaajo hogaaminaya ra'iisul wasaare Roble waxa uu si aan gambasho lahayn u sheegay in loogu hanjabay dilkii Aamina kadib markii isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle ay hor istaageen in kursiga hoob 135 loo xiro shakhsiyaad gaar ah waxa uu xusay in ay dileen kooxdii dishay Ikraan ra'iisul wasaaraha waxa uu muujinayaa in dalku uu ku jiro marxalad adag oo amniga ugu horeeya taasi oo khatar gelinaysa nolosha qof kasta oo Soomaali ah oo xitaa isagu uu ka mid yahay wuxuu una balan qaaday in aan laga hari doonin dambiilayaasha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo xalay ka hadlay munaasabad loogu duceeyay marxuumad Aamina Maxamed Cabdi iyo dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay Beledweyne ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in ay gacan ka gardaran ee Aamina dishay in ay ahayd gacantii ka dambeysay dilka marxuumad Ikraan Tahliil Faarax oo ilaa ay iminka lagu tuhmayo Fahad iyo Farmaajo in ay dileen waxaan aaminsanahay in Aamina gacan gagar daran ay dishay in ay ahayd gacantii dishay marxuumad Ikraan sababtoo ah markii uu madaxweynaha Hirshabeelle uu furo kursiga Aamina oo ay ku fadhiday isla markaana aan ku raacay in la bedelo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle waxaa saacado kadib ii soo dhacay fariin dhahaysa kursiga Aamina ee aad furteen Bob iyo ujeedda ayaad ka laheedeen laakiin waxa aad ka heshay Cali Guudlaabe iyo adiguna waan iska keen celinaynaa Hirshabeellena waan iska celinaynaa adigana waan iska ka celinaynaa ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in ay joogaan dadkii soo abaabulay oo qarashka ku bixiyay dilkii isku qarxiyay Aamino oo keenay magaalada Beledweyne balse mar uun cadaalad way heli doontaa ayuu sii raaciyay waxa uu ra'iisul wasaare Roble ka digay in ay jirto mas'uuliyadda lagu doonayo in dalka aysan ka dhicin doorasho isagoo sheegay in dadka qaar aysan diyaar u ahayn doorasho oo ay ka taagan tahay cadkaygiyow ku cunay
ama ku ciideeyay. Waxa uu ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in waqtigii loogu talagalay lagu dhaarin doono xildhibaanada la doortay inta dambiga gashay waqtigaasi lala xisaabtami doono. Dhinaca kale haddii aynu eegnana warbixin 27kii bishan la baahiyay ayaa lagu sheegay in weerar ismiidaamin ah iyo qaraxyo lala damacsan yahay shirkad ka howlgasha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa 3 maalin kadib oo ku beegneed shalay laga dareemayaa gudaha garoonka iyo banaankaba. Warbixintan la soo gaarsiiyay laamaha amniga ee gudaha garoonka ayaa argagax iyo cabsi ku beeray dadkii ku sugnaa gudaha garoonka iyo banaankaba kadib markii lagu soo wargeliyay in kooxda ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay soo galeen dhinaca afisyooni ee garoonka iyo cabsi kale oo laga muujinayo weerarkan ka dhacay iridda laga galo garoonka. Warbixintaasi kadib ayaa isku dhaxyac dhalisay iyadoo garoonka qarka u saaran yahay in la joojiyo duulimaadyada imaanaya iyo kuwa ka baxayaba. Ciidamada kala duwan ee maamulka ayaa ku soo ururay gudaha garoonka waxa ayna sameeyeen howlgal iyo in dadkii ku sugnaa gudaha garoonka ay banaankiisa loo digo lana mariyo baaritaan adag. Falkaasi qalqalka abuura ayaa waxaa ka dambeysay warbixino la daabacay 17kii Maarso oo ka soo baxday hay'adda NISA oo ka digayso in qof ismiidaamiye ah uu beegsanayo mid ka mid ah gaadiidka shirkadda Sahal ee daabula shaqaalaha garoonka Muqdisho. Dhinaca kale sirdoonka shisheeye ee ku sugan gudaha xerada xalanaha ayaa ka digay weeraro la mid ah kii ka dhacay gudaha garoonka Muqdisho toddobaadkii hore oo lagu beegsaday qayb ee xerada xalana ay ka deganaayeen dad ajaanib ah iyo weerarkii beledweyne mid la mid ah. Dhinaca kale haddii ayna eegnana sida aan ogaanay waxaa socda cadaadis labada dhinac ah oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lagu saarayo inuu isku sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya marka ay dhacdo xafladda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad oo la qorsheynayo 14 Abriil. Dhinaca koowaad ee culeyska ku saaraya Roble in uu isu soo sharaxo ayaa ah beeshiisa Habargidir ee uu ka dhashay. Waxaa juhdi badan ku bixinaya jufada hoose ee Sacad oo uu ka soo jeedo oo rumaysan yahay in uu haysto fursad aad u weyn. Beesha Habargidir ayaa ku canaanatay ra'iisul wasaare Roble in fursad sanooyin badani ee beesha sugaysay uu maanta haysto loogana baahan yahay Roble in uu ugu faa'iideysto fursadaasi oo ay ku tilmaameen mar la arag xilligan gacanta ugu jirta. Mas'uuliyiin sare oo ka mid ah beesha ayaa doonaya in Roble ku dhawaaqo musharaxnimadiisa marka la dhaariyo xildhibaanada golaha shacabka oo howsha doorashada ay ra'iisul wasaaruhu markaasi mas'uuliyadiisa uu qaaday kala wareegayaan baarlamaanka oo ka shaqeyn doona doorashada guddoonka iyo madaxweynaha. Xubno ka tirsan beesha oo Roble la hadlay ayaa ka codsaday in xilka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay isla haysiiyeen labada beelood oo kala ah Abgaal iyo Daarood oo kala qaybsanaya dawladdii ka horeysay. Culeyska labada dhinac ee Roble ku riixaysa in uu isku soo sharaxo ayaa ah dawladda Imaaraadka Carabta oo dhowr musharax maalgelinayso waxayna qorshuhu labaad ay u arkaan in ay ka dhigto Roble maadaama uu soo hogaamiyay doorashooyinkii baarlamaanka halkaas ay ka aragto in uu ka heli karo fursad weyn oo dhabar jebin karta ololaha doorashada ee Farmaajo oo taageero dhaqaale ka helaya dawladda Qatar. Wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dubbe oo aad ugu dhow ra'iisul wasaare Roble ayaa safar ay ugu ambabixeen Imaaraadka Carabta ka soo laabtay. Safarkaasi oo la xiriira dhabo oo xaaridda qorshaha Imaaraadka uu ku doonayo in ra'iisul wasaare Roble isa sharaxo laakiin si rasmi ah looma oga wasiiradaasi cidda ay Imaaraadku kula kulmeen iyo xogo dhameystiran intaba waxaase soo kordhaya shuxshuxda Imaaraadka iyo Roble ayaa markii uu khilaafka isaga iyo Farmaajo soo ifbaxay wuxuu dib u soo celiyay xiriirka Imaaraadka ee uu gooyay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Ololaha xilligan socda ayaa waxba kaga duwaneen doorashadii 8 February sanadii 2017 kaasi oo beesha Habargidir ay hirgelisay ololihii ahayd in dib damba loo dooran madaxweyne ka soo jeeda beelweynta Abgaal.
waxaa ololahaasi hormuud u ahaa Axmed Macalin Fiqi oo xilligaasi u ololeynaya farmaajo, laakiin doorashadii farmaajo kadib ku dhacday jahwareer siyaasadeed iyo in kabiirka siyaasadda uu noqdo saqiirka siyaasadda. aakhirkiina isku bedelay wasiir ka tirsan maamul goboleedyada Galmudug. ugu dambeyntii xajisan waayay wasiirnimadiisa ilaa uu mucaaradnimo cusub kala hor yimaado madaxweynihii xilka u dhiibay ee Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, hogaamiyaha maamulkaasi Galmudug. guud ahaan wanaaginta qodobadii aad ka daawanayseen bartaan YouTube-ka aynu ku leenahay ee National TV. haddii aad hore inoola joogin nagu soo biro channelka subscribe inoo saar. intaasina waa codsiye intaan ku kulmi doono muuqaalkan kiisi ciqrabi idinkii nabadgelyo.